ciidamada militariga ee badanka dagaalada galo waxa weeye nimanka dhacdooyinka ugu cabsida badan ay ku dhacaan sheekooyinkoodu haddaad dhegaysato daawada madaxa ayaa ka xanuunaya midbata kale ay ka cabsi badan tahay haddaba sheekooyinkaas badanka waxay ku saabsan yihiin iyagiyo la qabtay kadibna ka baxsay qabashadaas iyagiyo xaalado kala duwan ay ku dhaceen laakiin daawada askariga maanta sheekadu inooga sheekeynayay intaasi way ka duwan tahay askari lagu magacaabo David oo kasoo jeeda dalka Mareykanka ayaa wuxuu safar u tagay Philippine si uu la kulmo in adeerkii lagu magacaabo Guan kaasoo isaguna askari Philippine ah labadan ayaa wada fadhiistay kadibna waxay bilaabeen inay wada sheekaystaan haddaba askarigan Guan wuxuu sheekay dacdo uu aamini waayay askarigii lagu magacaabay David wuxuu yiri aniga iyo shinin oo kale ayaa hawlgalna loo diray hawlgalkaasi ma ahayn hawlgal aan kusoo qabanayno niman tuuga hawlgalkaasi ma ahayn hawlgal aan kusoo qabanayno niman burcada ama qolo jabhada hawlgalkaasi wuxuu ahaa hawlgal aan kula dagaalamayni makhluuq aan aaminin daawada markaad maqasho sheeko runtii aad u xiiso badan haddaba waxaan ku leeyahay maanta haddii ay tahay maalintii kugu horeysay ee channelka Wanted aad soo booqato waxaan ku leeyahay 5 daqiiqo ee ugu horeysa qisada dhageyso bas kadib waxaad oran doontaa sheekada basidan oo dhan ay u macaan tahay xitaa waxaad kala garan waayay doontaa xilli ay dhamaatay sheekadu marka channelkaasi haddii aad ka hesho subscribe waad saari kartaa laakiin haddii ku cuntan weydo anaa ku fasaxay waanad mahadsan tahay channelka magaciisa waa Wanted kaliya wuxuu kaaga baahan yahay inaad subscribe tiraahdo bismillaahi raxmaani raxiim inoo bilo sheekada askarigan lagu magacaabo David waa askari ka soo dagaalamay dhulkaas Iraq lana dagaalamay ciidamadii lagu magacaabay ISIS walow ciidamada dalka Mareykanka ee xagaa jooga ay u joogeen dulmi waxay hagaajiyeen iska day inay ummadii baabiyeen oo kaliya ay meeshaas u tageen haddaba muhiimadda ama nuxurka aynu ka qaadan doonaaye askarigaas waxa dhacday markuu dagaaladii ka soo noqday oo xoogaha joogay wuxuu bilaabay inuu xagaas iyo Philippine u fasax u tago xagaan waxa ku noolaa isaga in adeerkii oo lagu magacaabo Guan haddaba askarigii markuu tigirkii goostay uu isku sii daayay xagga iyo Philippine waxa ka hor imi askarigii lagu magacaabay Guan kaas oo runtii aad iyo aad ugu faraxsan labada nin waxay ahaayeen laba nin oo aad isku fahma waxyaabo badanna ka siman askarigan Guan wuxuu ahaa ciidamada militariga ee dalka Philippine xagga Davidna uu ahaa ciidamada militariga ee dalka Mareykanka haddaba daawada sheekadan sheeko runtii aad iyo aad u xiiso badan weeye waxaana ka soo qaadatay channel caan ah oo lagu magacaabo Wartime History kaas oo soo dhiga xaaladaha cabsida badan leh ee ku dhacay ciidamada militariga sheekadan dabcan isaga u sheegi kara inay runtahay iyo in kale anna sheekada markii aan jeclaaday waxaan bilaabay inaan idinkeeso turjumo haddaba sheekadan hore ugu socono ninkii Guan markuu soo dhaweeyay askarigii wuxuu bilaabay in uu tuso xeeladiisii iyo meelyowga ay degaan iyo adu meel kasta ay tusay kadib Guan iyo David iyagoo wada socda oo Guan meel kasta ka soo tusay waxaa David ishiisu ay qabatay sawir ku yaalay mid kamid ah guryaha sawirkaas wuxuu ahaa 5 askari oo kamid yahay ninkan loo magacaabo Guan waliba dhinaca midig ayuu taagnaa buu yiri iyo kabtanka meeshan xukuma oo lagu magacaabo Captain Kampala oo isaguna dhexda taagnaa laakiin markaas kabtamaan waxayna taliye ku xigeen kaliya ayuu ahaa sababtoo dhacdani xoogaa ka hor ay dhacday sawirkaas ayuu arkay haddaba arrinka soo jiitay wuxuu yahay askartaasi sawirka gashay gadaashooda ama dhabarkooda waxa ku yaalay waxaad moodo baad xayawaan kaas oo aad u weyn wuxuu aamini waayay xayawaanka intaa leeg muxuu noqon karaa haddaba David wuxuu go'aansaday inaanu sheegin ama aanu weydiin Guan oo wuxuu la sugay marka inuu hadhow iyo wax weydiiyo haddaba David wuxuu ku leeyahay arrinka iga yaabi wuxuu ahaa waa baad aad u weyn baadkaasi wuxuu ahaa baad madow iyo cawraan isku dhex jira kaas oo ay dhogor saarnayd wax dhogor u eg ayaa saarnayd dabcan waa la garanayay waxaas inuu xayawaan weyn ka go'ay haddaba David oo yaaban ayaa waxa dhacday in mid kamid askarta meeshaas joogtay oo lagu magacaabo Sergeant Kampala uu casuumo isaga iyo Guan kadibna ay xagaasi ku wada casheeyaan haddaba markii miiskii la isku wadaymi waxaa bilaabmay in la sheekaysto miiskii dushiisa lagu dul sheekaysto So David, your cousin tell us you were in Iraq, yes? Fighting ISIS? Yeah, that's right. I was on a small fire base, middle of nowhere, just us, a few M777s, and some special forces guys advising Kurdish units. Mostly fire missions. Some days it was all day, sun up to sundown. I'm honestly surprised my hearing still works. Huh? What did you say? Only joking. That's a good one. Hey, I've been meaning to ask. There was a photo back there. You guys are standing around with, what was that? Like a bat wing? Oh, that one. Sarge, you want to tell him? No. Let Juan tell it. He remembers everything better than me. David ayaa arrinkii ku soo noqday kadibna wuxuu weydiiyay Kampala oo ku yiri sawirkaas muxuu ahaa sawirkaas ayaa aad ii soo jiitay waxaana la yaabay waxa xayawaanka aad muddo ee xaga ka soo waran
maxaa jira haddaba Kambala uu qoslay markaasuu ku yiri anigu runtii aad uma xasuustay Guan ayaa si fiican xasuusta marka Guan bal ninkan aad ilmaadir ka tihiin dhacdadaas oo sheekay haddaba dhacdadii ay bilaabeen in loogu sheekeeyo ninkii lagu magacaabay David haddaba Guan wuxuu ku bilaabay uu yiri waqti hore ay dhacday buu yiri waqtigaas ninka meesha imika haysta wuxuu ahaa lieutenant ama taliye ku xigeen oo kaliya haddaba ciidanka uu taliye ku xigeenkaas haystay waxay u baxeen training ama tababar waxa la yiraahdo waxayna tageen meel bannaan ah oo ku taala koonfurta dalkaasi Philippines meel wada kayma ah wada dhir ah aanay wax nolol ah ka jirin meeshaas xayawaan iyo waxa mooye laakiin bini aadan ku nool aanu jirin meesha ugu soo dhow ama tuulada ugu soo dhow waxay u jirtay ilaa 3 kilomitir wuxuu ku leeyahay xaggaas ayaan hadaba joognay tababar ayaan ku jirnay waxaanan nala barayay sida loo rido roobka kala duwan ee madaafiicda meesha markaan degnayaan xerooyinkaygii dhisanay tababarkii bilaabmay maalintii afraad waxa dhacday hadaba in uu noo imaado tuuladii noo dhaweyd ninkii ugu sareeyay ee maamulayay ninkii oo xanaaqsan ayaa xerada yimi askarigii ayaana joojiyay wuxuu ku yiri maxaad u baahan tahay hadaba askarigii ayuu la hadlay wuxuu ku yiri isagoo xanaaqsan waxaan u baahanahay taliye Kendall igu yeedh Kendall ayaa markaas loo yeeray wuxuuna ninkii tuulada u sheegay taliyihii oo ku yiri xalay ciidankaaga ayaa tuuladeeda yimi kadibna waxay naga xadeen dhowr xabo oo digaaga iyo ari marka iscadee maxaad san ka wadan ayuu markaas yiri taliyihii u yaabay markaas ku yiri ciidankayga ayaa waxa sameeyay wuxuu u jawaabay ha hadaba taliyihii wuxuu u yeeray ciidankii meesha joogay oo dhan kadibna mid kasta ayaa la wareystay waxaana la ogaaday ciidankiisu in aanay ahayn kuwa waxday ama kuwa wax dhacay waa ciidan si waxa uu sameyn karayaan hadaba taliye Kambala wuxuu yiri dhibaato male naga raali noqo mar dambana ficilkan ma dhacayo wuxuuna siiyay xoogaha cunto ah oo markaas iyagu isticmaalayeen kadib ninkii tuuladii ay ka soo qaatay sidii ayuuna ku tagay haddaba Soomaali labaadii waxa dhacday inuu ninkii soo noqdo isagoo markaa hadana careysan kaas oo sheegaya in xitaa markan la xaday digaag iyo ari ka badan kuwii shalay xitaa xeradii iyo alaabihii iyo wixii Soomaalidu waa la wajibiyay marka maxaa si ayuu ku yiri taliyihii hadana mar labaad ayuu yaabay isagoo ka shakiyay oo isla ninkani malaha wax kale u socdaa wuxuu rabaa oo kaliya inuu wax idinka qaado hadana taliyihii waxba isma wareerin sidii si lamid cuntadii ayuu siiyay laakiin markan wuxuu ku daray ciidan oo wuxuu yiri bal ninkan ka soo war doono xaaladda haysta hadaba meeshii waxa loo diray ninkii lagu magacaabay Kambala iyo 5 nin oo kale oo markaas kamid ahaa Guan hadaba Kambala ayaa markaa intaas xukumayay oo uu sareeyay waxay isku raaceen 6 nin meeshii tuuladii waxayna bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan meeshan waxa ka jira hadaba tuuladii markii saawi yimaadeen waxay baaritaan ku sameeyeen meel kasta waxayna arkeen in meeshan la burburiyay oo ay dhabtahay hadalka markaas ninkii tuuladu meeshan laga xaday xoogaha digaaga ah iyo ari saas lamid ay jaban yihiin xerooyinkii lagu xareynayay digaaga iyo arigu hadaba isoo Kambala ayaa waxa soo dhici doona call ama telefoonkaasna waxa weeyaan taliye Kendall kaas oo ku leh warbixintiisii meesha maxaa ka jira So, what do you think? Hard to say, Sergeant. The coops are broken, everything's scattered. I don't think the villagers are making this up. No, you can see it in them. They're nervous. First Sergeant, Lieutenant Kaingos, on the radio. This is Gompalas. Go ahead, sir. Over. What's the situation, First Sergeant? Over. Sir, we see signs of damage. Some theft, some destruction. We can't say yet if it was rebels or bandits. The villagers are shaken. We're still talking to them. Over. Understood. Be careful. We've had reports of insurgents nearby. They may be trying to stir up trouble. Over. Yes, sir. I'll report again when we... Go, go, go! Sergeant, you got cut off. Something just happened, sir. I'll update you shortly. hadaba isagoo u waramaya oo kule ninka waruntii xoogaha ari iyo waa la xaday xaaladdu markaa saas ayuu markaa taliye wuxuu ku oranayaa bal waa sax sheekadan waxay waag tahay inay qolo jabhada ay arinkan ka dambeeyaan oo la isku daray ciidanka iyo nimanka tuulada meesha jooge aad iyo aad isku ilaaliya wax dhaqdhaqaaqa haddii aad maqasho si degdega adigoona waxba samayn annagana la soo xiriir gurmad degdega ayaanu kusoo gaari doonaa isagoo hadalkaa haddaba u wada waxa dhacday mar keliya inay maqlaan dhawaq ilmo yar oo ooyaya haddaba way wada naxeen wuxuuna ku yidhi Kambala taliyaan kugu soo celiyo waxaan maqlaynaa dhawaq anaa markaa ka dabageyn doonee sida inuu telefoonka ku jaray wuxuuna tagay xaggii iyo tuulada haddaba wuxuu arkay gabadh ooyeysa gabadhaasina waxayba ahayd ninkan tuulada xukuma inantiisa oo ilmo yar dhashay markaa ilmo yar oo markaasi xoogaha u jira waxay haddaba ku ooyeysaa ay leedahay ilmahayga yaraa ayaa iga maqan haddaba ciidamadii ayaa baaritaan sameeyey waxayna arkeen guriga gabadhaasi xaggiisa dambe ama qolka dambe ee uu ilmaha yar jiifay oo gidaarkii dhammaanbu ka maqan yahay meeshaas maadaama ay tuulo ahaydna maba lahayn gidaar iyo sibir iyo jaajuuriye waxaan wuxuu gurigu ka samaysnaa geed bamboo house ayaa la yidhahdaa geedkaas ayuu ka samaysnaa waxaana la arkay gidaarkii dambe in la fujistay ilmihii yarana si lagu qaatay ciidankii way fajaceen haddaba arrinka ciidanka haddaba soo jiitay oo ay aad u fiirsan wuxuu noqday waxay arkeen calaamado xagtin ah calaamado waxaa samaynaya oo dhulka ku yaala markaasay sheekiyeen israahdeen sheekadani maba ahaba jabhad iyo niman tuuga iyo waxaas sheekadani intaa way ka weyn tahay iyagoo yaabanaya haddaba waxay bilaabeen codka ilmihii yaraa ee ooyayay haddaba kaymihii ayay isku sii daayeen
All right. Take a short rest. Drink some water. We move again in 5. Sergeant, you hear anything? No, not for a while now. The sun is going down fast. What do you want to do? I don't want to tell that woman her child is gone. But we won't be any help if we can't see in the dark. Wait, It's close. Coming from up there. That hill. All right, on your feet. Let's move. meesha uu codku ka imanaya waxa ay u eg tahay wiili dhinaca bariga bari waxa ka xigta daba meel buuraley ah oo waaweyn dhulkan dhex marayaan waa dhul jiq ah wada kaymo ah wada geed ah xayawaan kasta meesha ka fido masas xayawaanada kala duwan wax kasta meesha way joogaan haddana iyadoo ay sidaa tahay waxay bilaabeen inay ilmaha dhawaqiisa daba galaan kadibna ay ogaadaan wax meesha ka jira haddaba isla mar labaad waxa soo qaraacay taliye ku-xigeenkii wuxuuna ku yiri Kampala maxaa meesha jira wuxuuna Kampala u sheegay xaaladdu sida u dhacday haddaba taliyihii wuxuu amray oo ku yiri ha dhaqaaqin ilmaha yarna ka daba tagin ilaa ay ku soo gaariyaan gurmad degdeg ah waxaa laga yaabaa arrinkani in uu yahay dabin ay idin dhigeen qoloyinka jabhada ah ee nagu hareeraysan cadowgu badan yahay amarkiga qaado haddaba Kampala wuxuu u jawaabay taliye sheekada Lumeeka sheekada laga dambeeyay sheekadan waxay u eg tahay inuu xayawaan sababayo waxyaabahan oo dhan marka waxaan ka codsanayaa inaan amar siiso si aan hore ugu socdo kadibna aan ilmaha yar u soo badbaadiyo haddaba taliye wuxuu ku yiri aad iyo aad isku ilaali sida ugu degdeg badan annaga ku soo gaarina hay buu yiri meesha ay raaqaynataba mid ku darso daawada nimankan waxay meesha u yimaadeen tababar buu ahaa diyaar uma aha inay dagaal galaan dagaalkaas oo noqon kara wax kasta ama dagaal ay soo weerareen niman tuuga ah ama dagaal ay la gelayaan xayawaanada kala duwan sababtoo ah waxay haysteen rasaas yar oo aad u kooban meesha waxay yimaadeen waxay ahayd inay ku tababartaan madaafiicda kala duwan ee ma ahayn inay bartaan rasaasta taas ayaana ka dhigtay inay in yar oo rasaas ay haystaan iyadoo ay saatay haddana Kampala wuxuu go'aansaday ilmaha yar ee rumay inuu soo celiyo sida ayna dhacday askartii iyagoo daalan waxay bilaabeen inay koraan oo ay jibaaxaan buurahaasi waxay ku leeyihiin sidaan u soo haddana waxaan maqlaynaa dhawaqa ilmihi yara laakiin dhawaqa ilmaha yar waxa ku lamaan cod aad looga yaabiyey waxa ku lamaan buu yiri xayawaan ama shay duulaya xayawaanada duula markii baadadkooda ay isticmaalayaan dhawaq yar ay bixiyaan haddaba dhawaqaas wuxuu ku leeyahay waa mid noocaas ah laakiin aad uga awood weyn iyadoo ay saatay haddana ilmihi yara weli u ooyaya siday u socdeen dhawaqii u daba socdeen haddaba nimankii waa ay daaleen wayna yara nasteen biyo iyo waxba yara cabeen iyagiyo sidii u nasanayeen marar labaad haddana waxay maqleen codka ilmihi yara waxaan moodaa markan in uu meel fadhiistay codkii baadadka ee luxmayay inuu istaagay keliya uu ilmaha yar yahay haddaba buurtii ayay koreen iyagiyo socda waxay soo istaageen meel fidsan oo buurta ka mid ah dabcan cadceeddu waa ay sii dhacaysaa godka ay sii gelaysaa yacni madow oo kale marka salaada maqrib laga baxo dhulku siduu yahay oo kala ayay ahayd waxayna rabeen intaanay cadceedaasi dhicin in ilmaha yar soo qaataan haddii ay cadceedaasi dhacdo iyaga laftooda xaalad halisa ay gelayaan markii meesha soo gaareen waxay haddaba ku arkeen gudaha meeshaasi in uu ku yaalo god ama kayf wax loo yaqaano iyagii raba inay godkii galaan waxayba arkeen geedaha ku ag yaalo godka oo uu saaran yahay xayawaan runtii ay aamini waayeen qaabka uu egyahay dabcan iftiin saasa ma haystaan oo waqtigu waa kaloo uu sii dhacayaa askarta qaar waxay sheegeen inay arkeen shay madow oo keliya laakiin ninka sida fiican wax u arkay wuxuu ahaa askariga lagu magacaabay Guan ee ahaa David Inaderki haddaba wuxuu ku leeyahay Guan waxaan arkay shay aad iyo argagax geliyay wuxuu ku leeyahay waxaan arkay xayawaan u eg fiidmaarta laakiin iyadoo ay saa tahay timale timahaasna waxaa ku lamaanaa weji aad moodo weji qof islaan ah iyadoo haddana ay saa tahay waxay u ekayd fiidmaar yacni waxaad moodaa wax bini aadan iyo fiidmaar isugu dhex jira leh wuxuu ku leeyahay wuxuu lahaa laba lugood wuxuuna lahaa baadadkii fiidmaarta kuwa u eg dhogorta saaranna gebi ahaan markaad aragto waad naxaysaa wuxuu ku leeyahay askartii markay saa warkeen naxdin iskala gelin waayeen rasaas ayna ku fureen haddaba askarigii lagu magacaabiyey Kampala wuxuu bilaabay inuu godka hore u soo galo wuxuuna meesha ku arkay arrin aad u argagax geliyey wuxuu meesha ku arkay digaagii iyo arigii ay lahaayeen nimankii tuuladu waana laga xaday oo gebi ahaanba xaggan hadhaagoodii yaalo la cuncunay waxaa ku leeyahay markaan daba godkii gudaha u galay waxaan arkay wax u eg cufka ay samaystaan shimbiruhu ay wax ku dhalaan ama nest sida u taqaano kaas ayaan arkay wuxuuna ku leeyahay waxaa meesha ku dhex arkay ilmihii yaraa ee lumay oo meesha yaala kaas oo dhaawacyo yari soo gaaray laakiin aanan weli la cunin yacni wuxuu u ekaa xayawaankan inuu xaggaa dhigto kadibna uu hadhow markaasi ilmaha yar kala tuuro haddaba wuxuu ku leeyahay waxaan arkay ilmihii yara oo daalay rafaad ka muuqda yacni siduu maantoo dhan u ooyey ilmihii yara ayaan la soo booday buu ku leeyahay waxaan maqlayaa bannaanka
oo dagaal aan caadi ahayn ka socdo markaan bannaankii u soo baxay haddaba waxaan arkay ciidankii iyo xayawaankii islaynaya baalkii oo ay dhaawaceen haddaba wuxuu isku dayay xayawaankii inuu meeshani ka baxsado meesha waxa uu dhaweeyay webigaas hadduu xayawaanku ka talaabo sidaas ayuu ku baxsaday yacni webigaas ciidanku kama talaabi karayaan Kampala ayaa wuxuu ku dhawaaqayaa uu leeyahay intaanu baalkaasi ka talaabin xaggaas rasaasta ku soo rida hasaate hore ayaan ku sheegay daawada rasaas ku filan nimankan ma haystaan Kampala si degdeg wuxuu la hadlay xeradii wuxuuna la hadlay taliyihii wuxuu ku yiri coordination waxa la yiraahdo waxa jira ay isticmaalaan nimankaas ciidamadu waxa siinaya tilmaam fiican hub ayaana meel fog laga soo ridayaa hubkaasna meesha la tilmaamay ayuu si toos ugu dhacayaa haddaba taliye Kendall markuu ka qabtay wuxuu ku yiri Kampala taliye waxaan u baahanahay inaad hub soo ridaan xayawaan noocaas ayna soo weeraray si degdeg meesha aan idin tilmaanteeda ku soo rida wuxuu ka yaabay taliyuhu qaabkan degdeg badan leh emergency-ga ugu hadlay in kale lagu magacaabo Kampala haddaba isagoo aanan sii warwaraysan wuxuu amray in la rido marka madficii siduu u socday wuxuu ku ag dhacay meel u jirta xoogaha xayawaankii markuu ku ag dhacay xayawaankii haddaba dhaawac ayaa soo gaaray walow isagoo haddana dhaawac soo gaaray waxaan arkaynaa buu ku leeyahay baalkii oo duulaya dabcan xayawaankan ka sheekaynahay fiidmayr yar iyo waxaas ma aha dherarkiisa waxaa la qiyaasaa inuu 1 mitir ilaa 1 mitir iyo bar u yahay yacni wuxuu ahaa xayawaan aad iyo aad ugu weyn fiidmayrta wax haddii uu ku soo weeraro gabi ahaanba ku dili karaya ayuu ahaa markuu xayawaankii dhaawacmay wuxuu isku dayay inuu meeshaas iskaga cararo haddaba waxaan arkaynaa buu ku leeyahay xayawaankii oo duulay marna dhulka ku dhacaya siduu u socday haddaba biyihii ay ku dhacdhacay buu yidhi markaas ayaana loogu dambaysay aragtidiisa annagoo ilmihii yaraa kusoo guulaysanay badbaadintiisii ayaan tuuladii kusoo noqonay runtii ilmaha yar hooyadii markay aragtayna aad iyo aad ayay u faraxday waxaana la sheegay oo nimankii tuulada u sheegnay xayawaankaasi inuu ahaa xayawaanka markaasi soo weeraray haddaba taliyihii markuu meesha soo gaadhay ee la arkay dhaawacyada uu meesha ka geystay waxay bilaabeen ciidankii markaasi in ay hagaajiyaan oo meeshii la joogaan dhowr cisho ilaaliyaanna waxayna la hagaajiyeen guryihii iyo wixii alaabtii markaasi ka xumaaday ilmihii yaraana waxay ugu magac dareen ciidankii dalakii star yacni qof waxay ahayd aad iyo aad ugu nasiib badan haddaba intaas kadib wax haba yaraatee dhacday ma jirto dhacdadii waxaa ka soo wareegtay in badan maalin maalmaha ka mid ah nin kalluumaysato ah ayaa ciidanku yimi isagoo wada markaasi haaf ama qayb ka mid ah baadkii yacni dhinac ka mid ah baadkii isagoo wada ayuu ciidanku yimi wuxuuna ku yidhi bahalkan ayaan ka dhaxelay ama kulmaysanaya mid ka mid ah webiyaasha haddaba ciidankii markii waxay garteen inuu xayawaanka yahay xayawaankiina markaasi u dhintay waxay bilaabeen markaa inay isku sawiraan xayawaanka baadkiisii kadibna waxay bilaabeen inay calaamad ahaan u haystaan oo gudaarkay ku dhejisteen haddaba markuu xoogaha yaalay wuxuu bilaabay bahalkii inuu qarmuun noqdo kadibna waxay bilaabeen inay gebi ahaanba gubaan sidaasna ay sawirka kala hadhaan sawirkaasina wuxuu ahaa sawirkii uu arkay askarigii lagu magacaabay David sheekada xayawaankaasina markaasi sidaasi ay u dhacday haddaba daawade waxaan rabaa inaan idinla wadaago xayawaanka magaciisa baaritaan oo samayn karaysaa xayawaankan waa xayawaan caanka ah dalka Philippines lagu magacaabo aswan saan hore idinku soo sheegay waxa weeyaan xayawaan aad u shabaha fiidmaarta iyadoo ay saa tahay haddana wuxuu u eegyahay bini'aadan yacni waxaad moodaa wax bini'aadan iyo fiidmaar isku jira dabcan hadalkaas maskaxda ma gelayo oo ma oran karo in xayawaan noocaasa jira hadduu jiro hore ayaa loo qaban lahaa haddaba Philippines sheekooyin badan ayaa laga soo wariyey waxyaabo badan ayaana laga soo sheegay innagaba sheekooyin badan sida aynu uga maqalnay qoysmariska iyo waxyaabahaas ayaa iyaguna markaasi sheekooyin badan ay uga maqleen xayawaankaas tani sheekada keliya ma aha sheekooyin badan oo kala duwan ayaa jira markaasi oo laga soo wariyey xayawaankan haddaba wuxuu kusoo gabagabeeyey ninka nooga sheekeynaya sheekadeenani ma garan karna inuu arrinkaasi xaqiiq yahay sababtoo ah waxaa la aamini lahaa hadduu arrinkaasi xaqiiq yahay marka la helo sawirkii ay markaasi ciidanku ku galeen youtuberkan lagu magacaabo wartime story wuxuu codsaday oo ka codsaday dadyoga jooga Philippines in ay hadday sawir ka hayaan ama email ahaan ugu soo diraan ama si un ay ugu soo diraan si loo hubiyo sheekadaasi inay markaasi xaqiiq tahay marka daawade xayawaankaasi adiga muxuu kala noqonayaa dabcan anigu sidaan aaminsanahay waxaan isleeyahay daawade waajibanka uu ilaahay siiyey awood shape shifting ama isbedbedele arrinkaas sababtaan u yidhi ama cadaymaha aan u hayo arrinkaas waxay tahay haddii uu xayawaanadani si dhaba u jiraan mar u ballanqaban lahaa ama mar umay dowladdu gacanta ku dhigi lahayd iyagoo meyda ama iyagoo nool laakiin labadaba midna lama hayo mana aaminsana inay jiban ku jiraan laakiin inagu daawade waynu aaminsannahay gabagabada muuqaalkeenii ayaynu soo gaadhnay adigoo aragtidaada xagga komitiga ku reebaya waxaan ku leeyahay aad iyo aad eed mahadsan tahay intaynu muuqaalkiisa soo arki doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu